bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa waqti dad badan ay u baahan yihiin gargaar si ay u daboolaan baahidooda nololeed. Xaaladan ayaa si gaar ah u taabatay qoysaska danyar ee aan haysan nolol maalmeedkooda. Wakiilka dumarka ismaamulka Wajeer Fatima Jeexu ayaa maanta ka bilowday magaalada Wajeer deeq raashin oo loogu talagalay dadka danyarta. Qorshahan samafalka ayaa ujeedkiisu yahay in la caawiyo qoysaska aan awoodin inay helaan cunno ku filan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay deeqdan oo dareenkooda la wadaagay ayaa u mahad celiyay Fatima Jeexu iyagoo sheegay in deeqdu ku soo aaday xilli ay aad ugu baahnayeen. Waxay tilmaameen in dadaalka ay wado ay tahay mid waxtar leh oo u muuqda mid xalka u ah dhibaatooyinka ay la tacaalayaan qoysaska saboolka ee Wajeer. Fatima Jeexu way mahadsan tahay gabadhan raashinkan oo noo keentay oo Ramadaanka la joogo way mahadsan tahay boqolkiiba boqol. Inteeda kale waxaan rabnaa madaxda inay ku daydaan way si Fatima Jeexu noo garab qabatay aydan ay noo garab qabtaan aan u baahanahay. Hadda labaad Ilaahay subhanahu wa qaadirkay oo raashinkan noo qoray inaad nabad iyo cumrigu ku dhameystay Ilaahay naga dhigo roob iyo nabad alla na siiyo aan u mahad celina. Waxaan iska imaamo Ilaahay xaqiis ba iska miskiin Ilaahay iska hay meeyda bood waa curiyaan gabar oo xanuunsan way il xiriirtaa tusheyd waxaan kula imaaday oo qoriid kula imaaday aan ilmeeyid ku biisha wax kale oo meel iga imaadaan malaha ka runta iska sheeg shalay galabtana gabar walaashay la afuro Timira Maxamed Cabdi Ali dhaha waa mahadsan tahay gabadhayna oo noo keentay raashinkan walaalahayna waa noo keeneen waa mahadsan yihiin waa si wanaagsan ay noogu keeneen si wanaagsan aan u qaadanay waa mahadsantiin ciidan waa mahadsanta Fatima Jeexu aska socda walaalahayna waa noo keeneen bariis bor saliid timir kulli waa noo keeneen waa mahadsan yihiin magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Axmed Nguvu waxaan ka imaaday xaafadda Bulajoogo maanta meeshan stadium kan joogno waxaan ugu imaanay deeq raashin oo ay bixisay oo inoo keentay honorable Fatima Cabdi Jeexu raashinkaas oo ay ugu talagashay Ramadaanka ayaa halkaan aan ugu imaanay gabadhaas waa ku mahadsan tahay ayada ayaa mudan anagana bil Ramadaan la jooga marka raashinkaas asaga ay halkaan stadium ku imaanay bulshadana way badan yihiin ummadda hadda meesha joogto intii hadda gudaha soo gashay waa inta kalena gudaha joogta marka Fatima Cabdi Jeexu waa ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol haddii oo Ramadaan kasta Ramadaan tripkan ma trip kale Ramadaan kale waqti kale ay keentay raashin san amal way jirtay hadda ayaa ku laba intii Ramadaan ay raashinka inoo keentay waa ku mahadsan tahay Fatima Cabdi Jeexu waxaan leenahay adiga mudan diicbay ala leeyahay waxaana ka imaaday Bulajoogo waxa way imaamadaayna Mumareeb Fatima Jeexu waa mahadsan tahay qeyran u rajaynay ana hali da khayr nuur cali waxaan ka imaaday Bulacali Macow Fatima Jeexu waa mahadsan tahay oo soo xasuusatay oo xilligan fiican noo keentay raashinka waa mahadsan tahay aan naftayda waxaan u wadaa duqo sariir fuula oo kaliya laga dhaqaa bishaan wax qaraabo keentay wax ku yisim ku afuro hadda loorkan xir wax ku jiro hada loo geey waa mahadsan tahay Fatima Jeexu boqolka ay mahadsan tahay madaxda kale inay soo xasuustaan waa maadaama dadka inta waxba lama gaaraan inay soo xasuustaan madaxda kale way Fatima ku soo daydaan aan rabnaa Cabdi waxaan ka imaaday dadkii hadda kala dhow xoolaha ka soo babeen oo hadda Wajeer aan fadhinaa bool guduud waxaan leeyahay Allah noo daaway waa banalsi Fatima ay ku imaadeen Ilaahay ku imaadeen ilowsi waa aydaa soo dhigtay waa aymana waa sida oo ku mahadinayna magacaygu waa Maxamed Guli Isaaq waxaan ka imaaday Bulajoogo waxaan joognaa stadium waxaan noogu yeeray raashin waxaan noogu yeertay muxushma Fatima Jeexu raashin wayna siisay sokor bariis sokor wax walbaba basta aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxa way si sharaf leh ayaa noogu yeeray si sharaf leh wax noogu siiyay dadkii meesha joogay iyo macal ciidankeedii si sharaf leh wanaagay wax nagu siiyay way mahadsan tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay anigoo aan naafada disability joogo chairmankeeda aad iyo aad aan ugu mahad celinaa way mahadsan tahay waxa way aad dareenka anaga maanta aad iyo aad u fiican yahay si sharaf leh wax nagu siiyay waana mahadsan tahay assalaamu calaykum dadaalkan ay wado wakiilka dumarka Wajeer ayaa waxaa si weyn loogu amaanay
sida ay u go'an tahay inay ka qayb qaadato horumarinta bulshadeeda gaar ahaan haweenka iyo qoysaska danyarta ee u baahan taageerida xilliyada adag. maanta waxaan helnay qoys ilaa 80 qoys oo cunto aan helnay aniga maxamed jaamac nuur senior chief of the location waxaan mahad u celinaynaa madamta khayr allah siiyo women rep Fatima Jeexow aad iyo aad mahad uga celinaynaa dadkeeda waa aad iyo aad bay ugu duceeyeen dadkan waa helnana kulli waxa waaye masaakiin iyo dad curyaan baa cuntada siinay ayaga aad iyo aad mahad uga celinayna marka waxaan leenahay shukran ka socona buulahodan waa ka raashinka aan dhex taaganahay afurka ay ugu soo talagashay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo waa walaashaanada oo noo soo murugooto noo soo fikirtay oo dhididkeeda wax nooga soo gooysay siday wax nooga soo gooysay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo insha Allah taala anaga reer buulahodan hadaan nahayna mahad baan u celinay waana ku soo dhaweynay soo dhawaaw amjiga waa mahadsantahay raashinka waana soo gaari maalintii uu mahadsaneedo keen leed maanta waa noo kan magacaydu Axmed Siraaji Sheekh Cali aad iyo aad u mahadsantahay women rep Kenya maanta stadium kan oo Moi stadium cunto badan aan ku helnay aad iyo aad dadka u tabaaleysnay waqti Ramadaan waa la joogaa waqti fiican aad cuntada keentay sida awoodeed aad iyo aad aan kugu mahad celinaynaa Ilaahay ha ku kalmeeyo dadkan waa ku duceeyeen markaan magacaada ha jira Maxamed Ali Samatar hoodan assistant chief hoodan waxaan u mahad celinaynaa gabadhayna Fatima Jeexow women rep Wajir County raashinkii buulahodan waa afurkaha waad ku mahadsan tahay. waxaa la filayaa in deeqdan raashinka la gaarsiiyo dad badan oo ku nool xaafadaha kala duwan ee Wajeer taasoo qayb ka ah dadaalada ay Fatima Jeexow iyo hormoodka bulshada ay ku doonayaan inay uga jawaabaan baahiyaha dadka danyarta ee deegaanka. Maxamed Shaaficanko, Wajir Community Radio, magaalada Wajeer.